السلام عليكم أصحابي isku noqod wanaagsan channelkeena ku soo dhawaada Safiyo Hudo magacaygu waa Safiyo Hormar wada taajir maanta barnaamijkeenu wuxuu ku saabsan yahay qodobo aad u muhiim ah waa hadii aad isticmaashid qodobadan noloshaada isbedel weyn ayaa ku imaanayo wax kasta aad adduunku jeceshahay waad gaaraysaa aad niyeysatay ma aragtay qof meel sare noloshiisa ka maraayo dhan dhaqaale dhan lacag ha ahaado qof ama ha ahaado qof actor ama ha ahaado fanaan ama qof business ha ahaado qof ama ha ahaado ma xataa diini ahaan oo kaleeto imaam oo aad oo caan oo meel kasta laga wacdo oo maanta safar ku jiro yani qofka levelka successka levelka noocaas kaleeto muxuu ku gaaray success kasta oo la gaarayo qofka waa inuu waqti geliyaa waa in rabis ay jirtaa marka maanta waxaan rabnaa inaan kaala hadalno 6 qodob oo hadii aad isticmaashid aad adduunka wax kasta aad jeceshahay aad gaari kartid qodobo aan ka soo tawinay book aad caan u ah 100 sano iyo ka badan jiray buuga hoos ay ku soo qoraynaa magaciisa waxa la dhahaa Think and Grow Rich مثل كحبوا كقرية وحنا لها goal setting لحنا قضب وgoal setting وبسيط الله جارب إننا goal كذا أجرت استبيا ده أما قرشي أو مر لهاد قضبة أو مر لهاد وحي كليه محاوي desire هرتوا goal setting وحقوق غريب قضب ما بقى حبط فهمتي goal ما بلا setting كرب دوسم desire أولين desire وامحي ووح كجوحايو عاد أديك عاد جعشينا سميسيد وح تصاب سوق عبنا بوفيس فهمت واربتان زائد بوفيس كقول قف كان بوفيس سوق ما قش قف كان إسلاك نفتي سوق الصغورة ودن كاسينو إمادو بوفيس كأوق قبضرتين وحصول جلا يعني باتوين بدن وحصل الأمجيد وحبا وعد بسله مرك تاسو كان ربتان أيوكو هيسو هديت هاي إناد ربتان إناد guri gadatid inaad ganacsi furatid ilaahum ahaato rabitaan inaad miisaankaada hoos u dhigtid wax markay ka guuxayaan oo rabitaanka u zaid jabal xataa waajibina qofka bini'aadinka marka waa wax oo aadan ka hurdi karin aadan ka nasan karin oo markaas madaxaada ku soo laabanayo heerkaas inaad gaartid hadii ay tahay waxbarashada waa ka guuxaysaa inaad digriigaas soo qaadid waa inaad lagu dhahay qof hebel meel hebel oo ka soo baxay waa jeceshahay waxaas inaad samaysid taas waa desire markuu imaado ba goal setting uu imaado yani marka yani 6 qodob aan ka hadlayno desire way ka horeysa desire waxa rabista aad weyn hadii jirto rabista aad weyn markay jirto markaas qodobadan kale taad isticmaalaysaa way ku fududaanaysaa rabistaas hadii sin jirin qodobadan ma shaqeynaa way wada burburay marka rabitaanka desire sida aan u faahnay waxa waa arin zaid kaaga guuxay rabis kali ma ahan waa rabis burning desire way dhahaata waa in rabis ee dhaaftay nooc min al-buufs ee taa diyaar u tahay bad iskugu soo shubeysid saa u gaartid geeska kaleeto oo ay rabistaada yani dadku hadda waxaan tusaale soo qaadanayna kulta dhalinyarada Soomaalida tahriib soo galay qofka maskaxdiisa waxa ku filan waa inaa wadan hebel aan taga nolol iyo geeri waxay igu qaadato waa inaan taga yani rabista noocaas kulta markay tahay lama horaan go'aan qofka goosh wuu gaaray marka qodobada waxay ku balan qaadayaan hadii rabistaada noocaas tahay ina goolka gaari doontid hadii rabistaada noocaas ay ahayn oo wali qodobada ay si isticmaashin waad gaaraysaa goolkii laakiin waxa laga yaabaa in waqtiga kugu yara dheeraado in goolkii 100% aad gaarin 20 ama 30 aad gaartid marka qodobka koowaad markii rabista laga soo gudbo ayaa waxay tahay clarity waxa aad rabtid inay ku cad yihiin maxay yihiin wax aad og tahay cad ay tahay oo aad gacanta ku fiiqi kartid soo aad kale aan loo kaleeto waxaan rabaa in aan guri aan dhisto oo from scratch guriga hadda deganaa ma from scratch aan rabaa inaan dhisto guriga waxa rabaa inaan ka dhistaan dhaheena Stockholm waxa rabaa inaan guri weyn oo balkii barxadiisa weynta inaan ka dhisto 3 dabaq inuu ahaado barxad banaanka horeeto biyo yani detailkii xitaa maskaxdeedu ku jiro iska badhaaf guri ahaantiisa
xaafad uu ku yaalayo jidkii baabuurkii markaa garaashkiisa aan soo dhigayo kalta baabuurka meesha u maray waxa dhan ay sawiran way ii caddahay clarity waaye waa tusaale midkaas oo kale waa easy ahaanaysa markii waa ogtaa waxa rabtid laakiin haddii aad aad guriga rabaa ma boosa ma dhul cadaa oo sagxad ahaa ma cariisha ma jiingada ama gool waxay ahaani kartaa in aan dhaho waxaa raba inay 10 kiilo ama 30 kiilo iga dhacdo iyadana waa caddahay ma fahat waa gool cad waa 30 kiilo inay kaa dhacdo ma aha 29 ama ma dhahoosid inaa caatooba raba weligaa ma gaaraysa inaa caatooba raba waa barkii qof adiga waxa caatu aragtid qof kale uma arko ani waxa caatu arko qof kale uma arko inaa caatooba raba is like ama ma dhihi kari inaa guriga dhistaa aan dhaho guriga dhistaa haddii dhaho waxaa laga yaabaa ina goosh irmood laakiin ay noqoto baadiyaha Soomaaliya ina guri yiriis oo waxa la cariish ma halaay baadiyaha dhis aqal Soomaali amal inoo noqdo ma faad yaa hadii gool waa qofkii aqal Soomaali oo raba inuu marka exactly so hada goolka yani hada clarity gaaga uusan specific oo ahayn wax arabtid markaas waxa waa hadhooti ilaa uu ku rumeeyay laakiin wax yarta iska noqon kartaa maadaama aad awal general ka dhigtay maada cadeysan exactly waxa arabtid so exactly marka waxa waxa ay dhaho sida dadaan fahamnay waxa waay markii laga soo laabto desire ki macnaha oo iskaag waxay rabid zaid ahayd haddana waxa rabitaankaad u ahay waa inay ku caddahay guriga sidoo u ekaan lahay wixii sida ay noqon lahaayeen si ay kugu sii fududaato inay gaartid barkii markaas xataa way fududahay niyadaada inaad ka dhaadhicisid oo haddii aad rabtid inaad lazy noqotid xataa aad isbushgaraynayso oo gurigii oo quruxda badnaay alaabtii aan raba ma fahantay waa isbushgarayna camal clarity si ku fiican tahay okay marka qodobka labaad marka waa deadline ya barkii guriga ma rabtaa guriga yani goolkan goorma gaaraysa waa ina exactly og tahay goorma rabtaa waa ina dhahdaa okay guriga rabaa 2022 December 31 waa ina gaaraa gurigaas waa ina 2022 aniga familkeeda deganahay 31 waa ina gaara waa ina deganaa gurigaas waa inuu ii fresh yahay fahad waa ina darbiyadiis taaban karaa waa ina leedahay deadline barkii hadii guriga ma rabtaa 10 sano dib u dambeys ma rabtaa 5 sano dib u dambeys ma rabtaa waa raba rooba lagu waay waxa fiican inaad exactly ogtahay deadline when markaas uu ku fududahay xatii markaas inay si bushgareyso oo waqtiga ay dhiman oo waxa ka dhiman hal sano iyo intaas hal sano iyo 3 bilood hal sano iyo 2 bilood maanta dhan waa si stressayna waa si bushgareynaysa discipline ku yeelanaysa inaad ka caajisina hadana ku baalkeena waqti markuu soo dhawaado farxad ku sii gelinaysa markay waxa tahay waxiiriisi ku jirtaa goolshaadi marka waxa la dhahay ma jirto gool inaad gaartid adoodan wax ku bedelanin so marka waa kana qodobkii saddexaad maxaa nolosheed maanta ka bedelaa si aan goolkii wax ma jirto oo easy lagu helo wax kasta wax bay ku kacayaan marka maxaa diyaar u tahay inaad ku bedelatid gooshaas inaad u gaartid what are you willing to give up for goolkan aad gaartid ma xume maxaad ku doorsanaysaa haddii aad goolkaaga hore noloshaada aan kamid ahayn aad kusoo biirisay waqti يعني وقتيه قبنا وحاس وانا wax u door waqtina ku doorsatid maxaa diyaar u tahay inaad ku doorsatid aad kaga tanaasuleysa jadwalka maanta aad haysatid ku dhisan wax waa inaad ka tanaasushisaa booskan wixii waxaan sa u gaar leed inaad ku buuxiso tusaale kale hurdadaad ma 2 saac ka tanaasuleysa hadii for example 30 kiilada oo rabtid inaad dhigtid oo kala subaxi alsiya ka soo kacay alsiya ka soo kacay ama cuntada ka tanaasulay cuntayaasha qaar kood ka tanaasuleysa xawli ma cuni doonto حلوة أسكي كل يريدسا exactly so marka aanano kale marka ina goal setting ka uu yahay inaad 30 kiilo aad iska kala yareysid marka waxaad go'aansanaysaa inaad subaxii alsii hal saac soo horkicis hurdadaada aad ka tanaasuleysa hal saac si aad exercise ugu bedeshid si jadwalkaaga maanta ay kugu saamaxmanto ama jadwalkaaga inuu ku jiro waqti aad qasaari jirto oo wax maalayaan aad ku sameyn jirto ama TV aad programyaal oo waxa ku soo saacidin aad ku daawo jirto aad ka tanaasul kulay wax waa inaad ka tanaasushid si aad goolkan aad ku gaartid mararka kood lacag ay noqon kartaa mararka kood asxaab xun ay noqon kartaa oo horumar aad ku gaarin aad inaad iska bedeshid dad kale oo hore ku sii wada aad ku bedelatid
qodob afraad action plan ha waa action plan taasna marka waxa waa inaad dhistid action planka marka waxa waa activity plan waxa la sameynaysa sidee goolkan uga maxaa sameynaa activity gaasha u baahanahay planka actionka inaad sameeyo maalin kasta isbuuc kasta bil kasta aan qaado maxay tahay si aan goolka soo gaar iyo goorma bilaabay waa inaad bilaabo isla hadada no ma jirto wax ha wax dib loo dhigaa ma jirto isla maalintaas aad goolka sateynayso waa inaad hore ka bilaabi kartid waxa aad 1 2 3 ina istaagtid inaha ma fahanti qofkii oo kiilo iskriday wuxuu sameynayaa inuu maalin kasta hal saac gymka aado isbuuc kasta bil kasta 4 isbuuc ku jirto ugu yaraan 4 mar 5 mar inuu gymka ka aadayo oo exercise sameeyna cuntadiisa inuu cuntooyinka oo ku cayilayo ama u xumeedo kale inuu ka tanaasunayo taasa marka action plankiisa number 5 statement ha waxa qoraysaa waxa ku qoraysaa kaar waxa aragtid action plankaas oo kale goolki deadline-ki inaad kiilooyinkii inay ka dhacayaan 31 December wixii aad sameyn lahayd oo give up sameyn lahayd oo tanaasul leedsay kiilooyinkaaga dhacaan xawladii ay yareynayso for example subaxina 2 saac ka hor aad soo kiciso dadkii oo jiifaan oo waqtiga aad ka soo kici jirtay adaa og maybe after salaad subax oo ku noqso jirtay inaan ku noqsanin aad gym sameysaa gurigaada dhexdiisa ama balaanka u baxdaa oo sameysaa warqada ku qoranaysa oo markaas ku xasuusinayso markii waxa nolosha waxa ku soo nooleed inta hadda ay jirto dhan way adag tahay inaad ku soo action ama routine maxaa jadwal cusub inaad ku soo rogtid oo hal mar aad isku bedeshid way adag tahay so kaara ku qoranaysa kaarkaasi tifiljeerkaad korkiisa ku dhagsanaysa waxa ku dhagsanaysa albaabka aad ka bixaysa ku dhagsanaysa waxa ku dhagsanaysa musqusha marka gashid miraayada wajiga lagu dhaqdo oo ku dhagsanaysa saa u aragtid maanta dhan ina 30 kiilo ay ka dhacday inaad caado tahay way isxasuusinaysa kaarka meel jaabkiira aad ku qoranaysa jaab ku ridanaysa 2 mar maalintii subaxii iyo habeenkii intaada jiifan oo kale madaxa loo ku intaas maxaa loo sameeyaa inuu madaxaada u isbedelo niyadaada ama fakarkaadii hore ay isbedesho fakarka cusub iyo horumarka cusub ee kugu soo biiraan maskaxda canjaladii hore inay tirtirto canjalada cusub ee ku duubto subax kasta galab kasta finjeerkaasi markasta oo kaaga hor imaana statementgaasi heerka aad inaad gaartid ha sax qoraalka marka statementiga aad qoraysid yani wax qoraal dheer laga maro wax adiga 2 sadar ugu badnaa 3 sadar camal oo kaleeto 30 kiilo ayaa iga dhacday December 31 2022 ama 21 waxay ahaato aad qoranaysaa taasne I'm gonna give up cuntada xun maalintii hal mar exercise gareynaya waa kaasa oo lixad wuxuu inaan 2 mar aad akhrisid subax marka soo kacdid si noqod wax ugu horeeyo yani maskaxdaada maadaama hore waxaan aad u soo sameeyno kale adiga dhaqitaan ku wada maskax brain wash isku sameeyno si aad u aqbashid the new reality marka subax akhri habeenkii ka seexanaysidna akhri waana niyeysanaysa oo waxaad istusaysaa adigoo caate adigoo 30 kiilo ka dhaceen adigoo dharkii oo dhar caate wato yani dharka aad ku dream gareynaysa oo kula facayo kaleeto yani waa inaad sawiradaas arki hadaadan goolka adoo gaar sawirada hadaadan arki karin goolkaas way kugu adkaanaysaa inaad gaartid midka aad sawirkiisa arki kartid aad ku riyoon kartid oo riyada marka inaad isku xirtid marka ka fikiraysid allah niyo caata isku jirano saas ama gurigeeyo saas hadaa u jeedid waa gaari kaas waa la muhura ina gaaraysid hadaa arki karin aragtidaada imaginationkaas ka shaqeysay ilaa ka arkaysid goolkaaga si fiican uma sarti gareenin ama mid qayaaliyaas sameeyay markaas waxa oo maskaxdaada kula dirirayso markaad wax oo aad kaaga fog awoodaada aad sameeysid maskaxda iyadaaba limitka kugu sameynayso ku dhahayso beema isku sheegayna waxaas ma qaban kartid naga dhaf haddii aad qodobadan aad isticmaashid horumar waad gaaraysaa adigina qodobo kuwan lamid ah haddii aad haysid ama buug aad u xiiseynaysid akhrisid ama nagu soo biirinaysid commentiga nagu qaybso marka subscribe garay gambaleelka ha iloobin yes nala socono taageer annagana waan ku taageeraynaa as horumar isla wada gaarno